بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين horta maanta goobjoog ayaad wada aheedeen muuqaalkana waad arkayseen shirkana maanta wuxuu ahaay shir lala rooraayo oon haddii la shir Soomaaliyeed aan u ekaynin oo la rabo in maanta la mariyo oo la isku gudbiyo Soomaaliya heshiisiinteed wax u dana waxa yahay mataqaana ka turjumayo midnimadeeda wax heshiisa wax meel wax isla dhigida iswarsi male qolo ayaa waxay taagneeday meesha iiduba dumoodo inay jaarta ka leedahay hal la mariyo hal la sheego hal lagu sabciyo hadii la hadlay taga dadkii gudaha ku jiraan ku gudaha ma gelin in dadkii yiri war dadka hal la sugo intay taagan yihiin wixii la tabanayna hal la ogaado kuwa maqana hal la warsado waxa la yiri manoraanti waxa maqan waa wax manoraati wax maqan jirka ka maqan male wax ma ku jira waxay ahaayeen wax yar ayay ahayd wala ogyahay shirka waa lagu kala maqan yahay waqooyi cidna sugmayso ayahay Abdullah ninka la yiraahdo Cabdi Qaasim oo shirka ka baxay oo asaguna yiri war wuxuu wax fiican ka socdaan lagu ma warceli ninka la yiraahdo Barreeyay oo asaguna yiri war sidii bal halay soo doona lama doonin anakoo banaanka taagnayna hal la mariyo ayay maanta shirku wuxuu ahay anakuna waadiidna inaan galno ninka raga ha mariyaan dhahna kibligaadna anaku waxaan aqoonsanahay waxa dadka loo dhiso haayo ama la rabo in la daaweeyo Kenyani anagu waxba ma leeyahay anaka Ethiopia waxna ma leeyahay anaka iyo nimanka la yiraahdo Djibouti waxba ma leeyahay Soomaalida wax ka leeysiin in la heshiisiyo ayaan rab nimanka saxiixayaasha hatta meel la isku keenayo mala wala kala qarina qol walba waa la roora col iyo cadaawo ayagoo oo dumooda meesha inay isku feeri rabaan oo dadka hatta meesha ayaga la kala socdo ay kulligood cadaawiisa wada qabaan ayaa waxa la rabaa in wax la mariyo wax saasan in dalkii la geeyo 4 sano dib u dhaco laga soo qaba kari oo dagaalka 91 bilowdo kale ayaa dalka ay u muuqataa inuu ka dhacayo hadaan arinta beriga an aragnay aan wax laga bedelin oo falxumada beriga beri lagu shaqeeyo oo beriga dab lagu shaqeeyo waxaana ka codsanaynaa una sheegaynaa maanta qoraalkiisa taal ayaan dhiibnay online hay warqadaani waa colaad gooniye muujine oo ma ahan warqad hay'adaha Soomaalida colaad wali qabtay mid lagu heshiisiinayo ma ahan kelmadaha ku qorana wada colaada qaab male niman aqoonyahan oo khubara sida warqada ku arkaysiin oo Soomaaliya oo nadiif la ka qabin oo nadiif ahayn iyo niman ajaanib oo nimanka lacagta bixinaya kamida oo aqoonyahan ha loo bixiyo hanoo soo qoraan warqadaas mataqaana qof arkabada aqarto ku farxayso hala keeno aan ka doodno wixii quruxan waxayno aan soo wada kaashano waxaan ku heshiisnaa aan noqon hogaamiyaalna heshiisu ma nihin qaraabanimana dadku heshiis u maahan balaayo aan la aragoon la maqal ayaan halka ka soo socdo waana uga sii digaynaa anaka dadkayna joogo magaalada Muqdisho meeshan ay fadlan soo socotaan si sheegeen halka document baan caawa idinku hayaa anu meel Soomaali wali lagu soo bandhigay ma hayo documentiga magaciisa waxa la yiraahdaa Study of Centralized Political Structures for Somalia Menu of Options waxa la dhameystiray 1995 waa documentigii ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inay dib uga dhalan lagu soo taliyay documentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics 7 professor oo 8 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya uu taqaano yahay Professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asalkana waxa way farta yar ugu hooseysa ninkii akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysa in laga saaray documentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba inay meesha ka baxdo documentigaas way asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysato wana haddaad ilaa detailkiisa hoostiisa si akhrido ilaa xad waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedela buugaasi ku qoran tahay halkaas ay ku qoran tahay waxaad ogtihiin marka isdilka iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirtay
soomaaliya waagii hore qofka soomaaliga ah wuxuu ku dhaadan jiray soomaalinimo qarannimo lagu dhaadan jiray hadda magaaladan aan joogno intaasoo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegayaa Puntland bari waxa loo dabaaldegayaa Somaliland galmudug baa loo dabaaldegayaa Jubbaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dawladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya xagee ka baxday buugaa yar fikradda ku qoran baa lagu baabi'iyay waxaan hadda gaalkacyo dhibteeda badatay laakiin waxaad ogeytaa inay gaalkacyo ugu horeynin dawlad goboleedka laga dhisay Baydhabo markii la dhisay tallaabadii ugu horeysay qaadam muxuu noqday ciidamay soo kaxaysay calanna way soo qaaday jaziira ka taagtay jaziira oo xamar duleedkeega ka taagtay maamulkii gobolka banaadirna ciidamo u diray isku dhaci ugu horeeyay halkaas uu ka dhacay meel walbana sidaas uga dhici doona meel walbana sidaas uga dhici doona Soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadday eegi jirtay dalalkii ka maqnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadday eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka Cali Sabiix ka yimaado Jabuuti agteeda iyo ka Siyoolo ka yimaado iyo ka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamarweyne ku dhasho la xuquuqaha wuxuu kaliyo ka xigay waxay ahayd guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd laakiin maanta maxaynu aragnaa qof Soomaaliya dad Soomaaliya laga tarxiilayo gobol Soomaaliya la leeyahay uma agdalanin meel kala doctor laga soo tarxiilayo waxaan u maleynayaa taas inay cad tahay meesha meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geliyay ummadii ciriiri xataa dhaqaalihii iyo baabi'iyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooyo lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysaa boosaaso alaabta boosaaso laga keeno ilaa qolo kastoo dawlad sheegatay waa inay cashuur rays garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalihii iyo ummadii Soomaalida halkaas la geliyay meel kasto waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiiro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaasoo iskuul Soomaalida biyo la'aan baa laysay ceelal bay u qodi lahaayeen wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax allaale wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax allaale wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay magac federaaliyada soo galaa waxay ahayd waagii gumaysiga wadanka haystay gobolada Soomaaliya kamida buu Talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku dayay inuu ku qanciyo inay Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraaddeed say xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillah dadkii Soomaalida markaa hogaaminayay gaashaankay u daruureen halka kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabi'inayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xigta dawladii Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadowba soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo dawlad goboleedya bedelay barina waxa ku xigto ogaada dawlad goboleedku wadankay rabtay ku beeri kartaa habba ciidsanina arinta waxaan xasuustaa dawladda Jubbaland markii la dhisay dawlad goboleedka Jubbaland madaxdii u tartamaysay nin kamid ah Sheekh Shakuul waa arintaasi meel walba ku taala wuxuu ku khudbeeyay Kenya waa stakeholder bay ku tahay arrimaha Soomaaliya yaani qayb bay ku leedahay waa in laga talageliyaa Faarax Macallin oo ahaa afayeenka baarlamaanka Kenya ku xigeenkiisu ninka darajada jooga siyaasad dawladeed waxa ay ku hadli karo muxuu yiri maanta intii ka dambayso afmadow iyo badhaadhiye Kismaayo Muqdisho laga xukumi maayo anigu waxaan leeyahay Soomaalidu haystaba qabato inta goori goortahay hal haystaba qabto qarannimo sidii loo soo celin lahaa hal lagu dadaalo taasna waxa lagu heli karaa in Ilaahay laga cabsado وحدة الصومالية أنا لقى شقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.